maanta waxaa dhacday abaar 3 saac subaxnimo gaarigayga wuxuu aaday isbitaalka Digfaar asoo marayo isbitaalka Suudani hospital oo ku yaalo xaafadda Hodan Digfaar agteeda albaabkiisa waxaa gaarigayga waxaa lagu horjaray gaari oo isbaasa gaariga waxaa saarnaa wiil iyo gabar aan waalid ah waxa mid wiilkan darawalku ahaa gabadhana macnaa ii sheegay waa saarneed gabadhan waa ku dhaawacantay wiilkina waa ku dhaawacmay gaarigiina waa miraadaha ka jajabiyeen cabaaray xabadeynayeen waa sidii macnaa ii sheegay waa luwahan waa ka bajiyeen gaariga alxamdulillah aniga gaariga ma saarnin gaarigaas kale wuxuu ka raacay ii sheegay waa sida ay sheegayaan darawalka iyo number 4 uu ka raacay gaariga macnaa ii sheeg saad waa siin waaye waa ka leexdeen horti oo macnaa ii sheeg horteedu socday saad waa sii waayeen waa ka leexdeen waa macnaa ii sheeg waa ku horgoynaya waa ka leexdeen oo cabaar kadib macnaa hor u sii socday ugu dambeyntii macnaa jidka oo wuxuu maray ii sheeg oo xanaana agteed ayagana toos ka baxeen kadibna macnaa hortoodu hadana soo maray markii la gaaray isbitaalka Suudanis gaariga waa ku horjaray rasaasna waa ku bilaabay macnaa darawalkii gabadha waa garan waayeen meesha ay rasaasta ugu bilaawatay kadibna gaariga waa meesha uu ka baxsaday waxaa gaari Cabdibila oo ay saaran tahay 5 ciidan horta waa aad iyo aad u mahadsantahay sax waaye macnaa adduunyadan waa jirtaa waa dad badan la tuhmaayo waa jirtaa already macnaa ii sheego arintaas iyada in ay ka dambeeyaan waa jirtaa laakiin ani mar rabo hadda inaan hor dhaco laamaha amniga inaan hor dhac mar rabo ilaa wadanka waa amniga ka shaqeeyo laamahaas amniga ani inaan hor dhac mar rabo laakiin dhibaatooyin badan waa iska jiraa wadanka wax badan oo anaga oo hadda ka hor amniga u sheegnan waa jirtaa marka mar alla macnaa ii sheeg arintaas iyada anaga waa sii baareena amnigana waa sii baari doonaa markii macnaa ii sheeg oo xaqiiqda la gaarin idaacadaha iyo adduunka oo dhan oo sheegi doonaa ilaahay haduu diidan insha Allah cid arintaas loo cafin doono ma jirto